قائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي سبحانه وتعالى waxyaabo fara badan ayuu ummadda ka xaaraantinimeeyey, waxyaabo badanna waa u diray. arrimooyinka loo diiday ummaddu inay sameeyaan ama ay fulinayaan ama ilaahay uu ka xaaraantinimeeyey waxaa ka mid ah mawduucyaalka aan rabna inaan ka hadalno, kaasoo ku saabsan beenta iyo waxa lagu magacaaba isku dirdirka. xaaladaha noocaasa waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummadda laga xaaraantinimeeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta ayuu la hadlay, markaasuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, war dadka ilaahay rumeeyayow, war dadka maalinta aakhira rumaysanow, war dadka nebigii aan soo diray rumeeyayow, ittaqullaha, ilaahay ka cabsada. war ilaahay ka cabsada ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. iimaankiina laazima oo taqwada ku adkeeya, iimaankiina laazima oo ku socda oo ha ka leexanina. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquluu qawlan sadiida. waxaad ku hadlaysaan oo afkiina ka soo baxana ha ahaada hadal toosan oo sabaab leh ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. war haddaad hadlaysaan oo mar kasta ay dhacda in afkiina wax ka soo baxaayo, ha ahaada shay toosan oo ilaahay jecel yahay oo raalli laydinkaga yahay oo dembi iyo waxyaabo kale aan idinkaga imaanaynin. waquluu qawlan sadiida. waxaad ku hadashaan qowl sadiida oo sawaaba ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaad kelimad fiican oo wanaagsan aad ku hadashaan, yuslix lakum acmaalakum, ilaahay wuxuu idin wanaajinayaa camaladiina, wuxuu idin siinayaa wanaag. yuslix lakum acmaalakum wayagfir lakum dunuubakum, dembiyaalkiinana ilaahay waa cafinayaa subxaanahu wa tacaala. haddaad ka tagtaan beenta, haddaad ka tagtaan namiimka, isku dirdirka, xaasidnimada iyo waxyaabaha dhan ee dabciga iyo arrimooyinka xunxunka ah, ilaahay wuxuu idin siinayaa wanaag, dembigiinana markaa waa dhaafa. waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. qof walba oo ilaahay ateeca oo rasuulkiisa ateeco, waxay ka reebaan ka hara, waxay u diraanna sameeya, waa liibaanay, liibaan cadiim ah iyo fawz weyn ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba beenta iyo isku dirdirku waa shay xaaraam ah. namiimnimada iyo qofka inuu isticmaalo shayga namiimka lagu magacaabo waa xaaraam. in allaala inta laga durqi karo ummadda isugeyntooda oo weliba hadalka in la kala qaada ah ayadoo loola jeeda fasaad, xaalada noocaasa waa mamnuuc ee ha laga fogaado. namiimnimada haddaan ku orno waa hadal lasoo naqliyo oo dadka loo kala qaado ayadoo loola jeeda fasaad iyo inay wax isku dhacaan iyo in dadka qoorta laysu geliyo, inay dagaal iyo dhibaato iyo fasaad iyo colaad ay ka timaado. xaalada noocaasa ayaa la yidhaahdaa namiimka ama isku dirdirka. ilaahay subxaanahu wa tacaala aad iyo aad ayuu u diiday arrinta, waana shay aan la ogolayn. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala hammaazin mashaa'in binamiim. min la tilmaamayey ficilo iyo arrimooyin xunxuna uu sameeyey ayuu ilaahay yidhi qofkaa wuxuu ahaa nin hammaaz ah, haddana mashaa ahoo socosho badan, wuxuuna ku soconayey ama markasta uu ku dadaalayay namiimnimada, inuu wax isku dira ayuu u soconayey ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. ummadda ayuu xamanayey hammaazin mashaa'in binamiim. muxuu kaloo ahaa mannaacin lilkhayr, midka khayrka manciya inay dadka heshiiyaan oo dadka wanaag dhexdooda ka imaado ama dadku ay noqdaan dad maxaba iyo isjacayl iyo mawadi ka dhaxaysa ayuu diidanaa. mannaacin lilkhayr. intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa mid xadgudub badan, haddana dembiila ah oo markaa ilaahay dembi ka galay subxaanahu wa tacaala. haddaba namiimnimadu waa shay xaaraan ahee ragga iyo dumarka shaqada ka dhigtay inay dadka isku diraanow, rabbigiina ka cabsada oo afkiina waxa ka soo baxa ha noqdo shay fiican, wax wanaagsan oo dadka wanaajiya oo khayr iyo wanaag lagu gaara adduun iyo aakhiro. mar walba ogaada waxa aad ku hadashaan in laydinka qoraayo oo ilaahay yidhi maa yalfidu min qowl. qofku kuma lafdo ama kuma dhawaaqo oo kuma hadla qowl ilaa ladayhi raqiibun catiid, ilaa agtiisa waxaa ahaaday raqiib iyo catiid. malag ayaa malakeyn ilaah uu ugu talagalay inay ka qoraan acmaalaha uu samaynaayo, taa ayaa agtooda ah ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala.
qof walba waxa uu ku hadlo iyo hadallada uu ku hadlo waa loo qora ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaa laga geynaa mar walba hadalka iyo kitaabka laga soo qoray ayaa lala kulminaa maalinta aakhira haddii la yimaado insaan walba waxaan ku laaziminaynaa camalkiisa iyo kitaabkii laga soo qoray ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala qoorta ayaa loo gelinaa wuxuuna la kulmayaa kitaab yalqaahu manshuura asagoo fidsan markaa lala kulminaayo waxaa loo dhahayaa iqra' kitaabak war kitaabkaaga aqriso kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba adiga ayaa maanta iskaafiya nafsadaada xisaabtan adigaa isugu filana aqri ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala war qof walba hadalka aad maanta ku hadlaysa ayaa kugu qoran waxa aad qabatay ayaa kitaabkaa ku sajalan waxaadan samaynin oo dembiya oo aadan gelin kuma qorna wax aad samaysay lagama tegin ee waa lagu soo qoray ha yaraada oo ha bato waxaad arkaysaa buu dhahay ilaahay maalinta mujrimiinta oo mushfiqiina mimaa fiihi ka cabsanaya waxyaabaha ay ku dhex sugan yihiin oo dhahaya yaa waylatanaa maa lihada alkitaab halaageeniyow kitaabkan maxaa waaye laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiira aan ka soo tegin wax yar iyo wax weyn ilaa axsaaha inuu soo koobay uu ku sugan yahay uu ku dhex qoran yahay maahane ilaah wuxuu yidhi wawajaduu maa camiluu xaadira wax walbay camal qabteen oo ay sameeyeen oo ay ku hadleen oo xaadira ayaa meesha ugu qoran rabbigaana axad ma dulmiyo subxaanahu wa tacaala haddaba qof walba ku talagal waxa aad ku hadasho in laguu qoraayo agtaada raqiib iyo catiid ay ahaadeen hadalka aad sheegta hadduusan yahay waa laguu qoraa hadday xumaan yihiinna waa laguu qoraa labadaba waa inaad iska ilaalisaa shayga xumaanta ah in badan wax badanna aad ku dadaasha inaad khayr ka samayso ummadda hawsha iyo shaqada ka dhigatay namiimkii isku dirdirkow ilaahay ka cabsada rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulu ljannata namaam axadka namaamkee isku dir ka badan jannada ilaahay ma galo qofka namiimka ah oo dadka isku dira oo inta hadalka qaada xagga hadalgala geeya qofka noocaasa jannada alla waa ka xaaraan qofkii namiimnimada ku socdow tooba keen caawa wixii ka bilowda ilaahay ka bari xumaanta aad samaysay in wanaag lagugu bedelo cidii aad isku dartay heshiisiintooda iyo wanaagooda ku dadaal ilaahay ka bari in dembiga iyo wixii aad gashay uu kaa saamaxo maanta wixii ka dambeeyana namiimnimada iyo isku dirdirka jooji waayo jannada ilaahay waa laga xaaraantinimeeyey axadka dadka markaa isku dira isku dirka waxaa laga helaa cadaabka qabriga qofka ummadda isku dira oo isku keena oo mashaakil iyo fasaad ka abuura inta aan qiyaamaha la gaarin ayuu ilaah ugu talagalay cadaab in lagu cadaabo qabriga gudihiisa rasuulku wuxuu soo maray ayaa la yidhi laba qabri wuxuu yidhi labadan qabri yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna loo cadaabi maayo waa sida ayaga ay sheegteen rasuulku markuu sidaa yidhi wuxuu dhahay iska daa inaysan weyneyn waa shay cadiim ah oo aad iyo aad markaa u weyn amaa axaduhumaa labadooda mid ka mida waa labadii qabri ee nebiga dhex maraayay ee uu sheegay labadooda in la cadaabaya labadan mid ka mida ayuu yidhi nebiga wuxuu ahaa mid aan kaadidiisa iska asturin midaan iska nadiifinin oo istanjada aan wanaajinin aan iska hubsanin kaadida inay ka go'day iyo in kale ninka noocaasa ayuu ahaa kaadida oo aan layska hubsan oon layska nadiifininna waxaa laga helaa cadaabka qabriga cadaabkiisa ayaa laga dheefaa sidaa darteed ayuu yidhi nebiga labadan mid ka mid ah sidaa ayuu ahaa wuxuu ahaa midaan kaadida iska nasahin midaan iska nadiifinin oon iska asturin midaan iska hubsanin midka labaadna wuxuu ahaa mid ku dhex socda ummadda inuu markaa isku diro ummadda ayuu isku dirayay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayay u bateen maanta dadka ummadda isku dira aad iyo aad ayay dadka maanta ugu bateen xaalada noocaasa waa xaalad aad iyo aad u xun shaqo ilaah subxaanahu wa tacaala xaaraantinimeeyey ayay noqotay war dadka iimaanka leh ee rabbigood rumeeyayow ka fogaada namiimnimada iyo isku dirdirka ka taga rasuulku wuxuu yidhi cabbaha waxa laydiin la yidhaahda ma idinkaga waramaa ma idin sheegaa saxaabaduha ayay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi waa namiimnimada waana hadalka oo baynannaasi la kala qaado ayadoo loola jeeda in dadka markaa lagu fasaadiyo
inaad ciddaan u tagtood hadalka soo qaado ama qof aad u tagtood hadalka soo qaado qof kale aad u geyso adigoo ujeedadaada iyo danta aad leedahay ay tahay inay dadku isdagaalaan, inay dadku markaa dhibaato kale iyo arrimooyin kale ka dhex dhaco. xaaladda noocaasa aad ha looga digtoonaado. war carabka iyo afka ha la ilaaliyo. qof walba oo carabkiisa ilaaliya oo ka ilaaliya isku dirka waxyaabaha alla diiday subxaanahu wa tacaala iyo arrimooyinka xunxunkaa wanaag ayuu gaaraa. rasuulku wuxuu yidhi yaa ii damaanaya oo ballan iiga qaadaya inuu ilaalinayo labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeya waa carabka iyo labadiisa lugood waxa u dhaxeeya waa farjige oon janno u ballan qaadaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. war yaa dhihi kara aniga oo ballanqaadka nebiga aaminaya? war yaa ku soconaya waxyaabaha nebiga diiday oo raacaya oo ka haraya arrintaa si ballanqaadka nebiga uu u helo? yaa ii damaanaya ayuu yidhi nebiga. war yaa ii ballanqaadayoon janno u ballanqaadaa? war yaa raba inuu janno helo oo ballanqaadkaa la siiyo? yaa ii ballanqaadaya inuu jannada helo waa inuu sameeyo 2 arrimood. arrinta koowaad ha ilaaliya labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeya waa carabka, waayo carabka wadka ayaa laysaga diraa, beenta ayaa laga sheegaa, diinta ayaa laga caayaa, shirkiga iyo waxyaabaha kale ayaa laga sheegaa. yaa ilaalinaya oo xumaanta ka ilaalinaya? war yaa wanaagga u samaynayo u horseedaya? yaa diinta alla ku difaacayo qur'aanka ku aqrinaya carabkiisa? yaa khayrka ku sheegayo ku tasbiixsanaya? yaa khayrka iyo wanaagga markasta ku sheegaya carabkiisa oon janno u ballan qaadaa? ileen waxyaabo badan oo wanaag lagu gaara ayaa carabku kasbaa ama markaa uu sameeya. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam 2 kelimadood ayaa jira. 2daa kelimad waa 2 kelimadood oo khafiif ah oo waxay ku khafiif yihiin ama ay ku fudud yihiin carabka. waxay cusleeyaan miisaanka qiyaamo. waxaa loogu jacayl badan yahay raxmaanka agtiisa subxaanahu wa tacaala. 2 kelimadood oo carabka ku khafiifoo maantoo dhan aad dhihi karto aadan ka daalaynin ayaa jira. maalinta qiyaama marka la tago oo laismiisaamayo miisaanka cusleeya miisaanka qiyaamaha waaye. allah raxmaanka aad iyo aad uu u jecel yahay subxaana allahi wa bixamdihi, subxaana allahi wa bixamdihi. sidaa ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. 2daa kelimadood maantoo dhan waad dhihi kartaa. intaad wax isku diraysa 2daa kelimadood dheh. intaad wax xamanaysa 2daa kelimadood dheh. inta aad dadka caynaysa 2daa kelimadood dheh. inta aad ilaahay diintiisa ka duruqsanaysa ama aad ka fogaan lahayd kelimadooyinkaa dheh. carabkaa ku khafiif ahee. carabka way u sahlan yihiin oo ka daali maayo kana noogi maayaan. xabiibka iyo allaha raxmaanka agtiisa ayaa loogu jecel badan yahay. miisaanka qiyaamo ayay kuu cuslaynayaan. maca daalika isku dirka hala joojiyo. aad iyo aad ayaan ugu badannahay maanta xaaladaa inaan samayno, haba ugu sii badnaadaana dumarkee. mar walba waxay ku dadaalaan sidii dhibaato iyo shaxna ay ku dhici lahayd, sidii colaad ummadda dhexdooda looga abuuri lahaa, qoys wanaagsan oo dhisan sidii laysugu diri lahaa, qoys dhaqmaya oo hagaagsan sidii dhibaato iyo shar looga dhex abuuri lahaa. waa waxa ay hawsha ka dhigteen dumarka maanta jooga. dumarkii hore waxay hawl ka dhigan jireen diinta inay ku dhaqmaan, rasuulka ay u yimaadaan oo ay diinta ka bartaan oo ay ka faa'iidaystaan oo ay dhaqangeliyaan, inay masaajidada soo xaadiraan oo wacdiga iyo salaada ay goobjoog ka ahaadaan, inay jasadkooda cadaabka ka ilaaliyaan, inay diinta alle ku dadaalaan, inay jasadkooda qarsadaan, inay xaqa taageeraan, inay mararka gobol ka mida jihaadka ay u kacaan. kuwa maanta jooga waxay hawl iyo shaqo ka dhigteen salaada oo laga tago, haddii la tukanayana wakhtiga oo dhammaaday la tukado. waxay hawl ka dhigteen diinta alle dhegaysigeeda booskii loogu talagalay inay heesaha iyo fisqiga dhegaystaan, meeshii loogu talagalay in diinta alle la barto inay bartaan waxyaabo ilaahay uusan raali ka ahayn, meeshii loogu talagalay ummadda in la wanaajiyo inay ummadda isku diraan oo galab walba marka casarka la gaarayo bimaadaan oo ay ku shaahaan ama ay ku qaxwaystaan inay dadka namiim iyo isku dir ay ku sameeyaan. hebel ayaa sidaa ahaa oo ku yiri iyo heblaaye ayaa sidaa ahayd oo arrintaa tiri. war joojiya ilaahiinana ka cabsada subxaana wa tacaala. isku diridda waa shay aad iyo aad u xun, waa shay aad iyo aad ilaah u diiday subxaana wa tacaala. namiimnimadu waa ficilada iyo arrimooyinka la sameeya midda ugu xun. ilaahay raali kama aha wuxuusan rabbi raali ka ahayn. ha ku hadaaqin, ha ku dhawaaqin, hana samaynin, hana fulinin ilaahay si aad agtiisa wanaag iyo sharaf iyo horumar iyo khayr aad uga gaarto.
taa ayaa wanaaga iyo khayrka ku jira. ummadow dadaala oo rabbigiina ka cabsada subxaanahu wa tacaala. rasuulku wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam, asxaabtayda hadallada ay dhahaan ha ii keenina, waayo waxaan jeclahay inaan u soo baxo anigoo laabtayda nadiif ay u tahay. ayadoo laabtayda nadiif ay tahaan rabaa inaan u soo baxo. hadday dhacdo inay wax dhahaan dhaafa, yaan la ii soo naqlinin, yaan lay keenin, yaan la ii soo sheegin ayuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam. maalin maalmaha ka mida ayaa nebiga xoolo qaybiyey. wuxuu u badiyey nimankii mu'alifa qulubta ahaa oo qalbigooda la soo dumaayey. boqol halaad ayuu siiyey sala allahu calayhi wasalam. nin ayuu siiyey nebiga. nin ayaa yidhi qaybtaan waa qayb aan lagu cadaalad samaynin, waa qayb aan alla wejigiisa loola jeedin subxaanahu wa tacaala. waxa sidaa la dhahayo waa nebiga sala allahu calayhi wasalam. dadka ka soo haray inay dulqaataan oo ay sabraan ayaa loogu talagalay. wax walba oo la yidhaahdo, hadal walba oo la dhaho oo dadka xaggooda laga soo gaarsiiyo waa inay u dulqaataanay adkaystaan. nebiga oo lagu tilmaamay inuu ummadda u cabsi badan yahay, alla uu ugu dhow yahay, taqwada iyo alla cabsigiisa ay meel dheer joogto, ayaa la yidhi waa qayb uusan cadaalad ku samaynin Muxamed. waa qayb aan loola jeedin ilaahay dartii. sidaa ayaa la yidhi. rasuulka nin saxaabada ka mida ayaa u geeyey oo yidhi sidaa ayuu hebel ku lahaa nebi rasuulkii allow. rasuulka wejigiisa ayaa doorsoomay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi yaa cadaalad samaynaya haddii nebi Muxamed uusan cadaalad samaynin. haddaan aniga caadil noqon waayo wuu khasaaray ayuu dhahay nebiga. intaa ka gadaal wejigiisa wuxuu noqday ayaa la yidhi sidii rinjiga oo kale. intaa kadib ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam waa iska sabraa aniga, sababtu waxay tahay allah u naxariista muuse, waa nebi muuse calayhi salaam. waa la dhibay arrintaa wax ka badan ayaa lagu dhibay, waana u sabray ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. haddaba dadka iimaanka lah waxaa laga rabaa haddii hadallo loo soo naqliyo oo nin fasaad iyo waxyaabo kala wata hadal uu u keena inuu hadalka bayaansado, inuu hadalka cadaystuusan iska duulin. xaaladaha noocaasa ayaa mamnuuca. dadka hadallada idin keenaya hadalladooda ha qaadanina. ileen dad faasiqiina ayaa ku jira oo ummadda raba inay fasahaadiyaan, ay iska hor keenaan oo wanaaga bulshada markaa necab. dadka xaaladoodu ay sidaa tahay aad iyo aad uga feejignaada. maalin maalmaha ka mida ayuu nebigu nin meel u diray oo yidhi sakada iiga soo qaad. ninkii markuu baxay intuusan tegin ayuu ka cabsaday inay dadku dhibaato gaarsiiyaan loo diray. waa iska soo noqday oo nebigu isaga soo noqday asagoo goobtii iyo meeshii loo diray aan gaarin. ummadii loo diray markay maqleen nebi Muxamed ayaa nin idin soo diray, sadaqaadkii iyo zakadii ayay diyaariyeen, wixii loogu talagalay ayay hagaajiyeen, asagana soo dhoweyn fiican ayay u diyaariyeen. asaga ma gaarin, waa iska soo noqday. markaasuu dhahay rasuulkii allow zakadana way ii soo diideen, inay idilaan ayayna u dhowaadeen. markii sidaa uu yidhi ninkaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu damcay in nimankaa zakada sidaa u diiday ninkaa nebiga diray damcay inay dilaan inuu duulaan ku qaado. asagoo arrintaa damcay ayuu yidhi ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in. war dadka iimaanka leh oo rabbi rumeeyayow nin faasiq ah oo ilaahay diintiisa ka furtay oo fisqi iyo xumaan ku socda oo raba inuu dadka iska hor keeno hadduu naba iyo war idin keena haduulina. in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. cadaysta ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. hadalkan wax maa ka jira ma samaya. xaaladaasay tahay ma dhici karta hiblaaye inay sidaa i dhahdo. arrin noocaasa qofku waa inaad u dannisaa. waxaan la hadlayna waa dadka hadalka loo keenaayo. sidaa ha yeelin ayuu dhahay ilaahay. ee faasiq hadduu hadal idin keeno oo wax uu idin soo gudbiyo ee uu damca namiim iyo iskurdirdirnimo inuu idinla yimaado hadalka cadaysta. waayo waxaa laga cabsanayaa inaad qoom is-asiibtaan idinkoo jahli ku sugan oo fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. hadduu wixii aad samayseen aad ka qoomamaysaan ood ka shalaysaan, xaaladaa ayaa dhici karta. heblaayaa hadal lagaaga keenay waad u duushay, ayadu beri ayay ka tahay oo wax ay keentay ama ay sheegtay ma aha, ama wayba hadashoo wax fiicanay ku hadashay waa laguu bedelay. dhibaato iyo mashaakil ayaa dhexdiina ka yimid. xaaladaa ayuu ilaahay diidayaa subxaana wa tacaala. haddaba dadka iimaanka leh waa inay sidaa sameeyaan. dadka rabbigood caabudaya waa inay iska ilaaliyaan dadka ummadaha hadalka ka kala qaada. ummadda waxaa u shar badan dilwajhayn buu dhahay nebiga, midka laba wajiilaha ah, kaasoo qoladaana weji ula yimaada qoladaana weji ula imaanaya.
dadka noocaasa waa ummadda kuwa ugu sharta badan ayuu yidhina ilaah subxaanahu watacaala nebigiisa. xaaladda noocaasa ogaada, si fiicanna isaga koontaroola ummadaha hadalka idin keenaaya. hebel ayaa sidaa ku yidhi haddii lagu dhaho, ama heblaaye ayaa sidaa ku tiri lagu dhaho, ujeeddadana wanaajin iyo naseexayn iyo wanaag aysan ahayn, oo xaaladdu ay tahay fasaad iyo in bulshada iyo ummadda dhibaato iyo dagaal markaa laga abuuro. dadka noocaasa waa inay xoog uga feejignaadaan. haddii hadal la idiin keena ama arrin laydinla yimaado, waxaad dhahdaan arrintan owla uma aha. mu'miniinta wiilasha ah iyo gabdhaha mu'minaadka u dhanniya una maleeya khayr inay yihiin, waxaadna dhahdaan arrintan waa buhtaan iyo been abuurad cadiim ah oo markaa weyn. arrintaas sidaa waayo dhaha oo mu'miniinta waxaad u dhannisaan mar walba dhanni fiican. inaysan sidaa idin dhehaynin ogaada, rabbigiinana ka cabsada subxaanahu watacaala. taasaa wanaag iyo horumar iyo khayr lagu gaaraa. dadkii wax isku dirayow towba keena, inta laysku dirayow idinkuna isu soo noqda oo heshiiya. rabbigiin xaggiisa wanaag iyo khayr ka dalba. dadka ummadda isku dirana agtooda ha fadhiisanina, hadalkay idin keenaan ha qaadanina. taasaa wanaag iyo sharaf lagu gaaraa. haddaba namiimnimada xaaladeedu waa sidaa, beentuna waa xaaraam. waxay ka mid tahay arrimooyinka ilaahay xaaraantinimeeyey subxaanahu watacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha, war dadka ilaahay ka cabsa, dadka ilaahay rumeeyayow ilaahiina ka cabsada oo wakunuu maca asaadiqiin, kuwa saadiqiintae runta sheega noqda ayuu yidhi ilaah subxaanahu watacaala. falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum, hadday ilaahay u run sheegi lahaayeen arrintaa ayaa u khayr badnaan lahayd. hadday beenta ka tegi lahaayeen way fiicnaan lahayd ayuu yidhi ilaah subxaanahu watacaala. haddaba beentu aad iyo aad ayay u xun tahay, mana aha caado lagu yaqaano dadka iimaanka leh. nebiga markii la su'aalay ma dhici kartaa inuu qalad ka dhaco qofka iimaanka leh, haa ayuu yidhi. ma dhici kartaa inuu khamri cabo qofka mu'minka ah, haa ayuu yidhi nebiga, oo waa suuragal. ma dhici kartaa inuu zinaysto, haa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. ma dhici kartaa inuu been sheega markii la yidhi, rasuulku wuxuu yidhi mu'minka been ma sheego. qofka iimaanka leh suuragal ma ahan inuu been sheego ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. qofku waa inuu iska ilaaliya waxyaabaha afkiisa ka soo baxaaya. ilaah wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun, war ha raacraacin oo ha ku soconin waxaadan ogaal iyo cilmi u lahayn. walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad, waayo maqalka iyo aragga iyo qalbiga kulli waa layska su'aalayaa ayuu yidhi ilaah subxaanahu watacaala. waa layska su'aalayaa indhaha, waa layska su'aalayaa qalbiga, waa layska su'aalayaa dhagaha. sidaa darteed ha raacraacina waxaadan ogaal iyo cilmi u lahayn. waxaadan sida ay yihiin iyo ujeeddadooda iyo xaqiiqdooda aadan ogeyn ha raacraacina. war ha sheegina oo ha dabagelina ee faraha kala baxa. waayo qofku waxaa been ugu filan buu dhahay nebiga inuu iska sheega bikulli maa samic, wax walba uu maqlo, wax walba uu iska maqlo haddii uu sheego, intaa ayaa qofka dembi iyo been ugu filan. maca daalika rasuulku aad iyo aad ayuu dadka ugu goobaabiyey inay runta ku dadaalaan, beentana ay iska ilaaliyaan. nebigu wuxuu yidhi ina asidqa yahdii ila albiri, sidqiga iyo runta qofku waxay ku hanuunisaa biriga iyo wanaaga. birigana qofku wuxuu ku hanuuniyaa jannada ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. qofka iimaanka leh oo rabbigii rumeeyey hadduu runta ku dadaalo, runta waxay gaarsiinaysaa wanaaga iyo qiimaha. wax kasta oo ah shay khayra ayay runtu gaarsiisaa. khayrkuna qofku wuxuu ku hanuuniyaa jannada. rajulka kama suula inuu run sheego, qofku kama suula inuu u qasto runta ee uu ku dadaalo, ilaa alla agtiisa looga qoro runlow, ilaa sidiiq looga qoro alla agtiisa subxaanahu watacaala. war darajo ka saraysa ma jirto qofka alla agtiisa runlow looga qoray. darajo ka qiimo badan malaha. axadku kama suula, gabadhuna waa la mid inay run sheegto oo ay runta ku dadaalaan oo ay caado ka dhigtaan, ilaa alla agtiisa looga qoro run sheegayaal. qofka beentu waxay ku hanuunisaa ayuu yidhi nebiga faajirnimada. faajirnimaduna qofku waxay ku hanuunisaa ila naar, naarta ayay qofku ku hanuunisaa. kama suula axadka ama rajulka inuu been sheego ee uu beenta u qasto oo mar walba uu ku dadaala inuu been sheego, ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kadaab, ilaa ilaahay agtiisa beenlow looga qoro. kama suulo inuu been sheego. maca daalika beentu waa arrimooyinka ilaahay diiday subxaanahu watacaala.
waxay ka mid tahay waxyaabaha rabbi uusan ogolayn. caadaadka xunxun ayay ka mid tahay. shay laga caado dhigtaa ma aha. qofku mar walba waa inuu runta ku dadaalo. runta oo lagu dadaalo waxaa lagu gaaraa darajo sare. beenta oo lagu dadaalana waxaa lagu gaaraa burbur iyo dhibaato iyo shay aad iyo aad u xun. maanta dadku waxay caado ka dhigteen inay beenta sheegaan. waxay ku dadaalayaan mar walba inay beenta ku hadaaqaan. waxaa beecooda ay geliyeen been. dhaqankoodu waxay geliyeen been. wax walba oo ay rabaan inay sameeyaanna beenta ayay ku dayeen. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, labada qofood oo wax kala gadanaysa mid kasta oo kamida khiyaar ayuu ku sugan yahay. qof walbo ayay kamida khiyaar ayuu leeyahay ayuu dhahay in allaala inta ay maxalkaa joogaan. qofka wax gadanaya iyo ka gadanaya labadaba khiyaarka ayuu mid kasta ku dheehan yahay intaysan kala tegin ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. hadday isku run sheegaan labadooda oo ay isku caddeeyaan waxa la kala gadanaya eeb inay leedahay iyo in kale, shay wanaagsan iyo waxaan wanaagsanayn inay yihiin, oo xaaladda iyo sida wax ay u jiraan ay u sheegaan oo ay isku run sheegaan, beecooda waa loo barakeeyaa. hadday isu qariyaan oo ay isu been sheegaanna beecooda ayaa barakada laga tiraa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed ayaa dadku maanta beecoodu wuxuu u batay inay ku been sheegaan. waxaysan ahayn badeecada in laga dhigo dhaar ilaahay xaaraantinimeeyey in lagu dhaarta in lasoo dhexgeliyo. arrimooyinkaasoo dhan waxaa loogu talagalay inay dadku ku helaan saman qaliil ah oo nolosha iyo xayaatada adduunka wixii lagu socon lahaa ah. sida ayaan la yeelin oo dadku waa inay runta isu sheegaan, inay beenta iska ilaaliyaan. waxa la kala iibsanaya xaqiiqdooda iyo sida ay yihiin qof kasta in loo sheego. waayo qoom hadday beeca isu dhagraan oo beeca ay isu khiyaanaan oo diinta alla ay ka tagaan, alla dulli ayuu ku sallidaa subxaana wa tacaala. beeca haddii la gadayo ama arrimooyinkaa la samaynayo runta ha lagu dadaalo daacadnimada iyo waxyaabaha rabbi raali uu ka yahay subxaana wa tacaala. mar walba beeca ha laga ilaaliyo beenta iyo waxyaabaha ilaah subxaana wa tacaala uu diiday. waayo beenta iyo dhaartu waxay ka mid yihiin waxyaabaha silcada iyo badeecada bixisa, laakiin barakada ayay ka tirtirtaa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. xoolo badan oo aad la hooyatood gurigaaga aado ood gurigaaga geysatood baraka iyo iimaan iyo khayr lahayn, waxaa ka fiican wax yar oo ilaah subxaana wa tacaala kuu barakeeyo oo nadiif ah oo kasab nadiif ah oo xalaala markaa ah. sidaa darteed runta ha lagu dadaalo, beentana ha layska ilaaliyo. shay ilaahay xaaraantinimeeyey ayay markaa ka mid tahay. dadku maanta aad ayay u jecel yihiin dadka beenta sheega. ummadu maanta waxay noqdeen dad been ku socda. sidaa darteed ayaa bulshadu hadday sidaa noqoto waxaa u soo dhowaanaya ama qarkay u saaran yihiin burbur iyo khasaaro iyo hoog iyo cadaab ilaah subxaana wa tacaala. iska daa wax kale, beeca wuxuu noqday shay dadka, beenta waxay noqotay shay maanta dadka lagu guubaabiyo oo ay dadku yidhaahdaan ama been baro ama beec baro. xaaladda noocaasa waa xaalad ilaah subxaana wa tacaala uusan ogolayn. been ha baranin ee beec nadiif ah oo wanaagsan baro, taasuu ilaahay wanaag iyo sharaf kugu siinaa subxaana wa tacaala. 4 waxyaabood waxay ka mid yihiin qofkii laga hela ayuu yidhi nebiga, ama 4 waxyaabood qofkay ku sugnaadaan waa munaafiq khaalis ah. munaafiq baraxla waaye buu dhahay nebiga. 4 waxyaabood qofkii laga helo ama aadaabkiisa ay noqdaan ama ay amaanada mid ka soo baxaa ma ahan ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. mar allaala marka la aamino oo ummaddu ay aaminaan, amaanada ayuu khiyaanaa. ilaahay amaanadii uu ku amaanaystay kama soo baxo oo waa dayaca. sidaa darteed ayaa amaanada oo la guto waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka wanaagga uu ku gaaro ouna kaga qaalis noqdo calaamadaha munaafiqiintu ay leeyihiin. waayo ilaah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay amaanada in lagu ciyaari doono qiyaamaha ama marka uu soo dhowaado. rasuulka ayaa maalin ummadda u wacdiyey, asagoo u xadiis akrinaya ayaa nin su-aal weydiiyey oo yidhi rasuulkii allow mata saaca, goormay saacadda qiyaamo dhacaysaa? saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa ayuu ninkaa yidhi. rasuulku lama hadlin, umana jawaabin, ee xadiiskiisa iyo akrinta xadiiskiisa ayuu iska watay. saxaabada gobol ayaa yidhi nebigu waa maqlay ninka hadalkiisa, laakiin su-aasha ayuu nacay. qolo waxay dhaheen maya maba maqlinba, hadduu maqli lahaa waa u jawaabi lahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. sidaa darteed ninkaa markuu dhahay rasuulkii allah goormay dhacaysaa maalinta qiyaamo, saacadda qiyaamo goormay ahaanaysaa, uu ka aamusay ilaa uu dhammaystay xadiidkii uu markaa haayay. markuu dhammeeyey ayuu yidhi aaway ninkii su-aasha i weydiinaayey.
aniga waaye ayuu yidhi rasuulku. wuxuu yidhi haddii ammaanada la dayaco saacadda qiyaama sug. haddii qof amaano guta laga waayo adduunka oo dadkoo dhan khaa'iniin ay noqdaan oo xaaladda iyo dadka ammaanada ay dayacaan oo ay ku dheelaan saacadda qiyaama sug. wax kale oo dhiman markaa ma lehe. sidee waaye ku dheelideeda ayuu ninka weydiiyey. rasuulku wuxuu yidhi haddii maamulka iyo hogaaminta iyo amarka loo dhiiba dadaanu cuntamin ehelna aanu ahayn fantadir isaaca. saacadda qiyaama sug ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. idaa wusida alamru ilaa gayri ahli. haddii amarka loo tiiriyo oo loo cuskiyo oo loo tiiriyo dadaan ehel u ahayn oo aan aqoonin maamulka iyo sida wax loogu talagalay, ehel iyo maamuus iyo mandabad aan u lahayn saacadda qiyaama sug ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba ammaanadu waxay ka mid tahay waxyaabaha loogu talagalay inay dadku ku dadaalaan. ilaahay wuxuu yidhi innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalard. ammaanada waxaan u bandhignay samaawaadkii arlada iyo buuraha inay qaadaan ayaan ka codsanay. way ka cabsadeen, waa diideen oo xaaladaa way ka cabsadeen. ammaanada xambaarideeda inay wax culus tahay ayay u arkeen, way ka cabsadeen ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waxamalaha alinsaan. insaanka ayaa soo xambaartay, waayo insaanku waa daluum oo waa dulmi badan yahay, haddana waa jaahil ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waa daluum jahuul ahoo jaahilnimo badan. marka calaamada koowaad waa qofka inuu ammaanada ku cayaaro ama ammaanada uu gudan waayo. midda labaad wuxuu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam, mar allaala marka uu sheekaynaayo ama uu hadlayo waa been sheegaa. been ayuu ku hadlaa buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. waa calaamada munaafiqiinta. midda saddexaad mar allaala marka lala ballamo waa khiyaana oo ballanta ayuu dhagraa ee uu ka baxaa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. midda afaraad wuxuu yidhi mar allaala marka uu doodayo been iyo faajirnimo ayuu ku doobaa. waxa uu ku doodayo waa faajirnimo, waa been iyo waxyaabo aan waxba ka jirin. sidaa darteed afartaa waxyaabood qofkii laga helo ama ay ku sugnaadaan waa munaafiq khaalis ah. qayb ka mida qofkii laga helo, qayb munaafiqnimada ka mida ayaa laga helay ilaa uu ka tegaayo. maca daalika dadku waa inay dadaalaan oo ay iska ilaaliyaan beenta, ileen calaamadaha munaafiqiinta ayay ka mid tahay. qof walba oo sheegta ayuu yidhi nebiga riyo uusan arkin. xalay ayuu seexday markaasuu dhahay waxa ayaan ku riyooday. ileen dad ayaa hawl iyo shaqo ka dhigtay inay habeenkii jiiftaan oo ay yidhaahdaan waxaasaa naloo sheegay, waxaasaa nala ku aqriyey, waxaasaa noo yimid oon waxba ka jirin. qof allaala qofkii indhihiisa tusiya wuxuusan markaa arkin waxaa lagu mashaqeeyaa inuu laba shaciiro markaa isku dhejiyo. mana samayn kara ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. mid samayn karaa ma aha laba badar in loo keeno ama laba masago ama laba qamadi ayaa la leeyahay isku gunud oo labadaa isku dheji. waa qofkii riyo uusan arkin oo beena sheega, mana samayn karo. waman istamaca ilaa xadiidi qowm. qof allaala qofkii dhegaysta qoom sheekadooda wahum lahu kaarihuun, ayagoo ay u nacayaan. dad sheekaysanaya oo aydan rabin inay dhegaystaan, aad ka dhegaysato hadalkooda. haddaad dhegta u taagto oo aad damcda inaad hadalkooda dhegaysato, dhagaha ayaa maalinta qiyaamo waxaa looga shubaa rasaas la dhalaaliyey. rasaas naareed oo la dhalaaliyaa dhagaha looga shubaa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. dadka sheekaysanaya dhaafa sheekadooda. war haddaysan idiin rabin inaad ka dhegaysataan ha ka dhegaysanina. qof walba oo dhegaysta qoom sheekaysanaya ayagana aysan rabin in laga dhegaysto, dhagaha ayaa looga shubaa rasaas naareed oo la dhalaaliyey. qof allaala qofkii masawira buu dhahay nebiga waa la cadaabayaa. waxaa lagu mashaqaynaa inuu ruux ku soo afuufo, mana ku afuufi karo. maca daalika dadka iimaanka leh rabbigood ha ka cabsadaano. arrimooyinkaa ilaahay diiday waa inay ka tagaan mar walba. wuxuu ilaahay u dirayna waa inay sameeyaan maalin walba. ama salaada subax marka la tukada rasuulku wuxuu dhihi jiray yaa riya arkay. war yaa xalay wax ku riyooday ayuu dhihi jiray. qofkii riyo arkay waa sheegi jiray, rasuulkuna wuu fasirayey sala allahu calayhi wasalam. subax subxooyinka ka mida ayuu yidhi yaa riyo arkay, wax hadla ayaa la waayey. anigaa riyooday ayuu dhahay nebiga. xalay laba nin ayaa ii timid, way ii yimaadeen oo waxay ii bixiyeen dhulkaa tahiran xaggiisa. meeshaa ayay ii bixiyeen. cabbaar markaan soconay ayaan u tagnay buu dhahay nebiga nin jiifa oo nin kalena korkiisa oo dhagax la taagan yahay.
dhagaxa ayuu madaxa uga dhufanaa, madaxii waa burburaa, waa baaba'aa, dhagaxna waa dilindiloonaa. ninkii dhagaxa ayuu aadaa, intuu dhagaxa ku maqan yahay ayaa ninkii kale madaxa loo sameeyaa ama waa usoo fiicnaanaa, waa usoo noqonayaa. sidii oo kale ayuu yeelaa. mar markuu ku dhufto madaxii oo dhan wuu baaba'aa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. sidaa ayaa la yeelayay. markaasaan idhi maa haadaa, ninkan xaaladiisu maxay tahay? labadaa nin oo ila socoto waxay ii dhaheen buu yidhi intaliq, nawad iska daa dadkaan. waa soconay ayuu yidhi. cabbaar markaan soconay ayaan haddana u tagnay nin taagan oo nin kale korkiisa uu la taagan yahay birkawaaneed, waa birta hilibka la suro. daanka ayuu uga jeexayay ilaa laga soo gaaro qadaadka, cisho ayuu uga soo jeexayaa ilaa gadaal uu ka keeno. sidaa ayuu yeelaayay. dhinacaan markuu baaba'o dhinaca kaleu aadaa, sidii oo kale ayuu yeelaa. dhinaca kale waa sii fiicnaanaa, haddana waa imaanaa. sidaa ayaa mar kasta la yeelayay. ninkan xaaladiisu maxay tahay ayaan idhi buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. iska so ay idhaheen buu yidhi ninkan iska daa arrintiise. waa soconay ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. cabbaar markaan soconay ayaa waxaan soo marnay haddana wax jika muufa u eg oo kale. waxaa ku jiray wiilal iyo gabdho curaad oo qaaqaawan, holac iyo dab ayaa ka shidmaayey. mar allaala markaan fiiriyey way qaaqaawanaayeen. haddii holaca batana kor ayay u soo baxayeen, hadduu khafiifo ama hoos uu u degana hoosay u noqonaayeen. kuwaan xaaladooda maxaa waayaan idhi intaliq ayay idhaheen buu dhahay nabiga. iska soco, iska dhaaf dadkaan xaaladoodee soco. waa socday ayuu yidhi nebiga. waxaa soo maray haddana webi biyihiisa ay dhiig yihiin. nin ayaa ku dhex jiray oo soo dabaalanayay webiga jiinkiisa. nin ayaa fadhiyo dhagxaan meesha u yaala. ninka soo dabaalanaya mar allaala marka uu damca inuu ka soo baxo afka ayuu furaa, kana dhagax ayuu u gelinaa, meeshii uu ka yimid ayuu u noqonaa. haddana waa soo dabaalanaa. sidii oo kale ayaa la yeelaa. ninkan xaaladiisu maxay tahay ayaan idhi. iska socay idhaheen buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. waa iska socday. haddana cabbaar ayaan soo socday. markaan soo soconay ayaa waxaan arkay buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam nin aad iyo aad u dheer oo haddii madaxayga aan kor u qaaday aan sigi waayey inaan wejigiisa ama madaxiisa arko. gaararkiisa waxaa dhoobnaa ama joogay ilmo yaryar ah ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. waa kasii tegay. cabbaar markaan socday ayaan arkay nin dab horsanaaya oo dab weyn meesha ugu shidan yahay oo hurinayo gaarkiisa ku wareegaaya. ninkaas mar allaala markaan arkay daymadiisa aad iyo aad ayay ii cabsi gelisay. labadii ninna way isoo wadeen oo waxay i keeneen geed ayuu yidhi. waxay i amreen inaan geedka koro. markaan geedka koray ayaan u tagnay magaalo qurux badan oo ka dhisan bulkeeti dahab iyo fida ama qalin laga sameeyey. guryo noocaas oo aan arkay ma jirin. aad iyo aad ayay u qurux badnaayeen guryaha. waxaa ku dhex jiray ilmo yaryar ah, naago, odayaal iyo dhallinyaro. waa ka baxayo way iga bixiyeen ayuu yidhi. waxay igeeyeen daarka qurux badan tii hore oona ka koraysa. waxaa ku jiray daartaa tii hore ka qurux badnayd dhallinyaro iyo odayaal keliya, naago iyo ilmana markaa kuma jirin. mar allaala markii meesha aan marayaan idhi buu yidhi caawoo dhan waad ii wareejiseen, waad i tawaafiseen oo meel kastaad i geyseen. arrimooyin cajiib badanna waa arkay. war ii sheega wixii aan soo arkay cajaa'ibta badnaa caawa. haddaan kuu sheegaynaa ee dhegaysay idhaheen buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. gadaal u noqo. ninkii koowaad ee aad aragtay in madaxa laga burburinaayey, madaxiisa la jajabinaayey waa nin qur'aanka bartay. mar allaala markuu bartuu habeenkii aqrinin, maalintii uusan ku dhaqmin. kitaabka ilaahay wuxuu ka dhigay wax laga tuura dhabarka gadaashiisa. hoyntii alla ayuu ka tagay. madaxiisa ayaa saa loo burburinaa oo loo baabi'inaa ilaa qiyaamaha laga gaaro ayuu yidhi nebiga. qur-aanka ayuu ka tagoo ka seexday habeenkii, maalintiina waa ku dhaqmi waayey. habeenkii sheeke iyo filin inuu daawado iyo waxyaabo alla xaaraantinimeeyey iyo arrimooyin kale ayuu dhex galaayey. maalintiina adduunkiisa ayuu ku dhex jiray, qur-aankiina kuma dhaqmin. kii labaad ee aad soo martay in daamanka laga jeexjeexayo waa kadaabkii iyo beenlowgii ayuu yidhi nebiga. been ayuu sheegaa oo afkiisaa laga qaadaa, markaasay jihooyinka adduunka kala gaaraysaa. dadaa hawl ka dhigtay maanta inay been sheegaan si jaraa'idada loogu soo qoro, joornaalada loogu soo dhigo oo raadiyaha looga sheego wax kidbi ah oo beena, waxna aan markaa ka jirin. daamankaa laga jeexjeexi doonaa sida nebiga tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam. wiilashii iyo gabdhihii aad soo martay ayagoo qaaqaawanaa oo jika muusaa ku jiray waa wiilashii iyo gabdhihii zunaada ahaa ee kala sinaysanayey ayaa leeyidhi buu dhahay nebiga.
webigii aad soo martay dhiiga ahaa ee ninka ku dabaalanayay ee marka uu soo baxaya afka looga ridayay dhagaxa waa ninkii rubasaarka cuni jiray ama ribada cuni jiray ayuu ii dhahay nebiga ayay ii dhaheen buu dhahay labadaa nin ninkii dheeraa ee aad aragtay ayay yidhaahdeen ibraahim ayuu ahaa waa nebi ibraahim calayhi salaam owlaadda meesha joogta oo agtiisa fadhisayna waa owlaadda yaryarkee dadka u saqiira muslimiinta ah waxay weydiiyeen saxaabada owlaadda mushrikiintana ka waran gaalada ilmaha yaryarkee yaraanta uga dhinta ayagana sidee waaye ayaguna waa ku jiraan ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam idan wax dembiyo ayagu ay geysteen markaa malaha haddii ay saqiirnimada iyo yaraanta ku dhintaan waayo canug kasta oo la dhalo isfidrada iyo diinta alla ayaa lagu dhalaa ninkaana sidaa ayuu ahaa ninkii daymadiisa aad arki weysee daymadiisa xumayd dabka shidanaya oo gaararkiisa uu ku wareegayeyna waa maalig oo waa keyd hayaha iyo maamulaha naarta ayay ii dhaheen daartii koowaad ee aad gashay ragga iyo dumarka odayaasha iyo naagaha iyo ilmaha ku jiray waa daarta caamka ee muslimiinta jannada ay leeyihiin daartaan hadda aad ku jirtee dhallinyarada iyo odayaasha keliya ku jirana waa fadaaru shuhadaa dadka shahiidiintii jihaadka ku dhinta daartoodii waaye indhahaaga kor u qaad ayay ii dhaheen ayuu yidhi kor ayaan fiiriyey waxaan arkay buu dhahay nebiga shay aad iyo aad u cad oo qurux badan oo sida daruurtoo kale ah waxay ii dhaheen kaasna waa mansilkaaga iyo guriga aad jannada ku leedahay rasuulkii alla waxaan idhi buu yidhi war iska kaydaaya gurigayga aan gale adduun maba u noqonaya bas waaye iska kaydaaya gurigaygaan galaa mayay ii dhaheen cumri ayaa kuu dhiman oodan weli soo dhammaysanin haddaad soo dhammaysata gurigaaga waa imaanaysaa labadeenaa nin ana jibriilun anigu jibriil ayaan ahay wahaadaa miikaa'iil midkaana waa miikaa'iil oo waa laba ninoon caadi ahayn malakul jibriil iyo miikaa'iil haddaba beenta xaaladeedu waa sidaa qofka iimaanka lahoo waxaad ogaataa beenta sideedaba xaaraanba ha ahaata asalkeedee xaaraanba ha ahaatee waxaa bannaan mararka gobol ka mida in la been sheegi karo mararka gobol ka mida ayay jujuus ama shay bannaan noqonaysaa waa axwaalaha gobol ka mida hadday dhacdo haddii arrin maqsuuda ama danteeda la raba in la gaaro dantaana shay wanaagsan oo qiimo badan ay tahay ay suurageli karta dantaa in la helo ayadoon la been sheegin beentu markaa xaaraan bay noqonaysaa haddii arrin la raba in la gaaro arrintuna ay tahay arrin qiimo badan oo diinta ku fiican aanana la gaari karin ilaa in la been sheega maahane si kale aan lagu gaari karin xaaladda noocaasa beentaa markaa waxay noqonaysaa mid bannaan beentu bacdamaa xaaraam ay noqotay mararka gobol ka mida ayay sidaa noqotaa matalan haddaad qof muslima u qarinayso xoolihiisa ama nafsadiisa qof ayaa raba inuu dilo ama xoolihiisa uu qaato maca daalika qofkaa inaad qariso oo aad been ku qariso way bannaan tahay matalan wadeeca iyo alaab ama lacag ayaad u haysaa insaan ama qof ayaa raba inuu ka qaato ama xaggaaga uu ka qaado inaad u qariso way fiican tahay waxaana habboon oo wanaagsan ayaa la yidhi in tawriya ahaan loo isticmaalo waa shay ninka maqlaya uu run u maleeya laakiin kayrkeed ah matalan tusaale waxaa loola jeedaa nin ayaad xoola u haysaa waxaad u haysaa lacag dhan 500 oo kun oo kale nin ayaa kuu yimid oo raba xoolihiisa inuu qaato wax maad u haysaa ayuu ku yidhi waxaad dhahaysaa kun xataa uma haayo waa runtaa oo 500 oo kunaad u haysaa laakiin wuxuu u fahmayaa asaga inaadan waxba u haynin waxaadna u haysaa lacag intaa gaarta tawriyada noocaasa ayaa fiican xataa haddii aad ka tagto si cibaaro ah oo wanaagsan aad u isticmaasho beenta xaaraan ma noqonayso culimadu waxay u daliilsadeen arrimooyinka noocaasa xadiiskii ummu kaltuum waxay tiri rasuulka ayaan ka maqlay asagoo dhahaya laysa alkadaab beenlow ma aha midka dadka islaaxiya alladii yuslixu bayna annaasi midka dadka islaaxinaya heshiisiinaya beenlow ma aha oo khayr gaaraya ama khayr ku hadlaya ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam dadka in la heshiisiiyo been waa loogu sheegi karaa macnaha riwaayad kale waxay tiri kama maqlin rasuulka oo banaynaya beenta ilaa 3 mar maahane midda koowaad waa xarbada dagaal xarbi islaam iyo gaal ayaa lagu jiraa adigaa lagu qabto waxaa lagu yidhi sheeg ciidanka muslimiinta meesha ay joogaan iyo hubkooda meesha uu yaala been ayaad u sheegi kartaa iyo wax allaala wixii nafsadaada aad ku badbaadinayso waa xarbada iyo dagaalka marka lagu jiro midda labaad waa islaax bayna annaas dadka marka la islaaxinayo oo la heshiisiinayo dadka in la heshiisiiyo been ha loo sheegaa laysku ogaa maanta sidii dadka laysugu diri lahaa been loo sheegaa waa shay aad iyo aad u xun matalan 2 qofood ayaa dagaal ah waa la heshiisiin waayey
si kale oo lagu heshiisiiyey ayaa la la'yahay been ayaad ku heshiisiin kartaa wax dhibaataa ma laha hebel ayaad u tegaysaa waxaad dhahaysaa heblaaye ayaan ka imid ama hebel wuxuu dhahaya walaalkay asagaa iga sii jeesanaya maahana anigu wax uma qabo wallaahi asagaa salaanta inaan ku bilaabaan rabay asaa iga sii jeesanaya maahane wallaahi aniga la heshiiskiisa ayaan jeclahay si gooniya ayaad u dhisaysaa iyo hadal qofkaas uusan soo dhihin oo wanaag ah mar allaala markaad dhistaad kii kale u tegaysaa waxaad leedahay hebel wuxuu ku lahaa wallaahi walaalkay aadaan u jeclahay asagaa iga jeesanaya oo heshiiskayga diidan maahana wax walba waa u huri lahaa qofkii kalena saasaad u dhisaysa labadii qofood oo qoslaaya oo midkoodka kale u maleeya in hadalka uu dhabkayaad iska hor keenaysaa sidii ayay ku heshiinayaan waa islaax bayna annaas in sidaa wax lagu heshiisiiye diinta islaamku aad bay u jeceshahay waa isku diraynaa maanta beenaa laysugu diraa in been lagu heshiisiiyaa la ogolaa waa midda labaad midda saddexaad rasuulku wuxuu yidhi waa xadiidu rajuli ninka xadiidiintiisa naagtiisa uu u sheekeeyo iyo mar'ada ninkeeda hadalkay markaa u sheegto mararka gobol ka mida ayaa guryuhu waxay ku dhowaadaan baaba iyo inay dumaan haddii been lagu heshiisiiyo oo lagu wanaajiyo wax dhibaataa markaa ma laha islaantiibaa odaygeeda waxay ka dareentay inuu kasii jeesanayo waxay uga shaki qabtaa meelo kale iyo waxyaaba noocaas oo kale ah gurigii ayaa dhisnaantiisii baryahan aan wanaagsanayn inuu been uga sheekeeyo si gurigeeda loo wanaajiyo gurigaa ugu dhisno mashaakil malaha walaalay adi mooye cid kale ma jiro wax walba xaggayga waa ka saraysaa indhahayga oo kale saan u ilaalinayaan kuu ilaalin iyo arrimooyin kale oo markaa aan waxba ka jirin si markaa guriga uu u wanaagsanaado haddaba aad ha loo dadaalo beentana ha laga sariigto runta ha lagu dadaalo ilaahay ayaa wanaag iyo qiimo nasiinaya adduun iyo aakhiro xaaladuna sidaa ayuu mar walba ilaahay wax u amray subxaana wa tacaala carabka si wanaagsan oo ba-an ha loo ilaaliyo qofka waa inuu carabka aad isaga qabtaa haddaadan iska qaban waa ku cunaa libaax oo kale ayaa lagu miisaalaa subax walba marka waaga baryo xibnahoo dhan carabkay hoos imaanayaan waxay leeyihiin carabow ilaahay nooga cabso haddaad toosnaataanaka waa toosnaanaynaa haddaad qalloocata waa qalloocnaanaynaa ilaahay nooga cabso nin ayaa nebiga u yimid markaasuu dhahay rasuulkii allow badbaadadu maxay tahay maxaan ku koraa oon cadaabka uga koraa oon janno ku heli karaa carabka iska qaba ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam war sida uu raba ha u yeelin sida uu raba ha u hadlin ee sida alla ku amray u hadal dembiga kaa dhaca habeen iyo maalinka oy ayuu yidhi nebiga gurigaagana ha ku deeqo waxyaabaha waxay ka mid yihiin waxyaabaha wanaaga aad ku gaarayso dadka way kulmaan wayna shiraan way isugu yimaadaan maxalo fara badan laakiin khayr ku sugan ma jiro laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadka shirkooda iyo koodkay isugu imaanayaan maalin walba dhaqan iyo xukun ay degsanayaan maalin walba qodob qabiil ay dejinayaan wax khayra oo ku jira male meelaha ay isugu imaanayaan iyo goobaha ay ku caweeyaan meelaha ay ku qayilaan iyo meelaha baararka ay fadhiistaan kulligood khayriye iyo wanaagaa laga anfiyey khayr kuma sugna ayuu yidhi ilaahay kulanka iyo shirka iyo isu imaadka dadka badankoodu ay sameeyaan ilaa 3 maahane ilaa man amara bisadaqa nin sadaqa dadka amrayo qof dhibaataysan oo miskiin ah in wax la taro in la wanaajiyo qof baahan sida ilaahay tilmaamay aw miskiinan daa matraba miskiin bacajiif u saaxiib ah suu u socdaa baahidii ka badatay ushiisiyaa dhinac ku dhacday asagana dhinac kale ayuu ku dhacay ninkaa in wax la taro oo wax loo qabto ayuu dadkii u kulmiyey xoolo ayuu markaa ka aruurinayaa lama rabo in dhibaato la gaarsiiyo qabiil kale ma u aruurinayo in mashaakil kale la gaarsiiyo laakiin miskiin bacajiif u saaxiiba in lagu taageero ilaa man amara bisadaqa midda labaad ilaah wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala uu arrintaa ku tilmaamay ilaa man amara bisadaqatin aw macruuf shay macruuf ahoo wanaag ah khayr laysku sheego diin alla oo laysku dardaarmo khayr iyo muxaadarooyin iyo ilaahay diintiisoo laysku sheego kulanka noocaasa kulanka khayrka ayuu ku jiraa midda saddexaad waa islaax iyo heshiishiin dadka la heshiisiiyo ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waman yafcal dalik ninkii arrintaa sameeya una sameeya wejiga ilaah asagoo ku dalbaaya ajir cadiima oo weyn ayaan siinaynaa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala haddaba walaalayaal dadaalo oo ilaahay diintiisa ku dhaqma walaalayaal dadaalo oo dad xaqa ku socda noqda waxyaabaha beenta iyo xaaraamta aan ka tagno namiimnimada iyo waxyaabaha ilaahay uu diiday aan ka tagno si aan alla agtiisa wanaag iyo sharaf iyo khayr ugu gaarno
labada mawduucoo dadku waa inay aad ugu baraarugaan. waa laba arinoon aad iyo aad ugu badannahay. inaan dadka isku dirnana waa ku dadaalnaa, beentana hawl iyo shaqo ayaan ka dhiganay. dad ayaa maalintii ayagoon been sheegin aan seexan karin. dad ayaa maantoo dhan waxay caada ka dhigteen inay bbcooyinka hor fadhiistaan oo ay dadka la hadlaan oo waxaan waxba ka jirin iyo hadal meeluu ka yimid aan la ogeyn ay ummadda maanta ugu sheekeeyaan. afkiisa la fiirsanaa maantoo dhan. saasay noqonina tasbiixda hala badiyo, dikriga ilaah hala badiyo, diinta alla hala badiyo, akhriskeeda qur-aanka alla aqrintiisa hala badiyo. inta yar ee qofka noloshiisa adduunku u shaqaysanayo maahane, inta kale ha xoojiya daartiisa aakhiro. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqana waafajiyo. waxaan kaloo ka baryaynaa isku dirka iyo beenta aan caadada iyo shaqada ka dhigaynayna inuu ilaahay naga madoobeeyo subxaana wa tacaala. sida khayrkan iyo wanaaggan aan ugu kulanayna ilaahay ha nagu kulmiyo jannat alfirdowsa iyo meelaha lamidka. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaana wa tacaala aclam.